sameeyo marka waa muddo dheer bay ku fikirayaan si aan dadka ugu qabto waa garta waxaan rabaa dhageystayaashuna isweydiinayaan bal inaad laba arrimood iswaafajiso waxa la dhihi karaa Foosiyo dhowr bilood ka hor waxay u ololeedaysay oo doonaysay Somaliland dal madax bannaan maxaan ku idhaahdaa inay noqoto Soomaaliya ka madax bannaanaato inkastoo ay goosatay 91 haddana aqoonsi caalami aysan helin haddana dawladda Soomaaliya ay ku jirtaa dastuurkeeduna Soomaaliya waa mid buu leeyahay marka labada bal iswaafaji arrimahaasi waa arrimo waqti iyo istaraatiijiyo u baahan waa arrimo doodo badan u baahan waa arrimo is-afgarad u baahan waa arrimo bilow ah waxa aan maxay ahayd kaga baxayaa hadalkii bilowday waxaan rajaynayaa inuu sii socdo waxaan rajaynayaa in la sii wado waxaan ka rajaynayaa in guul ay labada dhinacba ku faraxsan yihiin ay ka dhalato waa garta laakiin hadda adigu midnimada Soomaaliya ayaad taabacsan tahay sax Soomaali waxay jeceshahay sidii madaxweyne xasan sheekh uu ugu yiri qodobkiisii ma jirto xoog iyo qasab iyo dagaal iyo wadahadalka wixii lagu gaarana waa lagu wada raalliyahayna waa insha allah lagu guulaysan doonaa waxaa la magacaabay dowladda cusub Soomaaliya golo wasiir cusub wana haweeney ku jiraan sida wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziya ka guurtaan isbedelada cusub ee ka socda Soomaaliya wana xoog la saaray mas'uuliyiin badan Soomaaliya loo magacaabo maxaad ku leeyahay oo maxaa ka oran la hore qaranka Soomaaliya yiraahdo waxay leeyahay waa dambiilo qaran waxay meesha ka saarayaan jiritaankii iyo madax bannaanidii Soomaaliya halkii kuwii hore la mariyay baa la marinay kamana sokeeyaan kamana foga waa dambiilayaal qaran wixii xeer sharciya ee inoo yaal baa la marinay waa mahadsantii tirada cusub ee Soomaaliya waxa qayb ka ah wali xil sare loo dhibay Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka soo jeeda deegaanada Somaliland isla markaana horaantii sanadkan doonaysay in ka mid noqoto ama ay ku soo biirto saaxadda siyaasadda ee maamulka Somaliland arinta adinku sidee u dareemaysaan arrimahaas waa arrimo shakhsi ah wey oo aniga iyo cid kale toona aan uga baahnayn faalo dalka mashruuc baa ka taala dadka dhaqan ahaan iyo dhalasho ahaan Somaliland ka soo jeeda qayb ka gala dawladda Soomaaliya sharci baa halkan ka yaala marka sharciga la tiigsanaya qof kasta oo halkaa taga ama shilka qabta taasi waa taa dhinaca kalena qof Somaliland u dhashay oo u shaqo tagay Soomaaliya anagu qof u shaqo tagay baan u aragnaa Soomaaliya u shaqo tagay waxa la wax dhibo halkan nagu hayaan qofkaasi haba yaraatee ma jiro waan jirtay oo muddo horeba oo jirtay qaarimaasi arrimo dhibaato gaara anaga nagu haya ma sharci baan u kaleenahay qofka haga u shaqo tagayna waa go'aan shakhsi ah oo gaaray arrin uu mas'uul ka yahay shacabka Somaliland iyo dawladdeeda midna maaha haba yaraatee